sababtay ku dhici kartaa in adigiina anshax ku qaban waayo anigiina uu yaqabto raali geli maxay tahay buu ma beel isaaq la dhahan raali geliya mise golo baarlamaan ma raali geliya golaha baarlamaanka waxaan kaga gafay la yeeshaa haddii aad beel raali geli leedahayna hadaba wajaad kale السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال كسر هذا برنامج كحوارا حبيه جدا بيه إنه يدين هاي إننا واحد كم ده برلمان كسومالي لأنه مانتا سكولة تجي عن قاد الكاس وأي حل بنادو أسكوا خلافين سيدو كله جرد الله سعانود أي مانتا للشيء يا إن وبيال سكوا صوت ولا بده بنعبة يدو للشيء سومالي لأنه سكوا تجي جدا بيه يكون قبصنا هاي مجال ده أي روح السلطان تاع إسلام كان ay rabaan abaabul weyn oo ay iyagu kama dambaysta ama ay ku galaan gudaha magaalada ama ay kaga qoostaan geesta kale magaalada ammaankeeda ayaa waqtiyada habeenkii lagu soo rogay bando iyada ciidamada SSC ee gudaha magaalada ka taliya ay ganacsatada sagaalka fiidnimo laga gaaro ay ku soo rogeen in aan la ogoleyn dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidoo kale isku socodka dadka iyagoo ilaalinaya in muqaadaraad iyo waxyaabo kale lagu soo dhex qariyo maadaama magaalada ammaankeedu yahay mid aloosan xaalad dagaalna darislaan cabdiraxmaan ayaa martiga barnaamijka dabcan inta badan igala qayb qaata xogahan indhaha ugu hayay cabdiraxmaan bal soo dhow maxaa u dambeeyey haddii aan ku bilowno somaliland iyo dagaalka laascaano siday usoo kala horeeyaan baarlamaanka maanta maxaa ka dhacay somaliland bismillahi raxmaan raxiim haydin waan dhowahay waadna ku mahadsan tahay adiga iyo daawadayaashana daawanaya iyo ninka inaga duubaya kaameradaba aad baan u salaamaynaa iyo bahwadaagta bahda xog waran bacdi salaan baarlamaanka somaliland waa baarlamaan aad u qafal xun baarlamaan aad odhan dimuqraadiyadda ka dhaqan gashay golayaashiisa ama fadhiyadiisa waa baarlamaan aadan is odhanaynin waa midkii afrika ee dictatorka iyo maxaan ku dhahay waxaan soo ajendeeyeen soo qoro uun samee dhowr nin oo waxaa ku dhex jira markaa xor ah maxamed abiib ka mid yahay yarkan kale axmed labehe cas axmed khaliif uu ka mid yahay raggaas waa rag markii xataa golaha laga saaro dibadda ku qabsada golahooda kulankiisa ku dhamaysta waxaa dhacday guddoomiyihii midkan hadda shir guddoomiye gudoomiye ku-xigeenka ah ee Saciid Diriye Giir Saciid Mire Giir gudoomiye ku-xigeenka ninka maanta shir guddoomiye wey waa ninka qafalka xumay hawshan cabdirasaaq markaa ku xigayso cabsaaq ku xiga cabsaaq meesha golaha markuu ka baxay iyo kala fadhigii ama shirkan ka horeeyay yaa abiib uu tallaabooyin qaaday cabdirasaaqna ku taageerayo hawlo fara badanna uu kaga hadlayo oo golaha dhexdiisa ahaa adoo markii golaha uu ka buuqay laga saaray iyo dibadda shirkiisa ku dhameystay warbaahinta intuu isugu yeedhay iyo shirkiisa halka ku dhameystay shirkii noocaas ahaa xildhibaano gaaraya dhowr iyo 27 meelahaas yaa ka qoray dacwad in la ganaaxo inuu kal fadhiyo ka maqnaada lagu ganaaxo lacag lagu ganaaxo maxay lagu ganaaxo raali gelin wuxuu sameeyo dhan inuu kale adu qodobadaasay kaasoo aan ku qotomin xiroosaadka golaha aan ku qotomin mid uun xeer jajab iyagu ay ka dhigteen saaka markuu kala fadhigi furmay waxaa isugu yimid abiib iyo xildhibaanadii iyo guddoomiye ku-xigeenkii Saciid ninkii khaliif ahaa hadda dhaxalkiisa haysta cabsaaq khaliif ahaa waxaa amarka lagu bixiyey iyadoo shirkuba uunan furmin in abiib intuu kaco uu raali gelin bixiyo abiib wuxuu yidhi haddii dee aad leedihiin adigu kolka hore ugu galgashay walow markii dambe meel xun ka gaadhay wuxuu yidhi xeerka adii cuskanaysaan ii sheega qodobkaa iyo qodobkaasaad jebisay idhaha haddii aynan taasi jirin oo buuqii maalinta dhaweydii iyo wixigii adiga guddoomiye ku sheegii waad aflagaadootay waad gacan qaaday xildhibaan meesha joogaad cayday sababtay ku dhici kartaa in adigiina anshax ku qaban waayo anigiina uu yaqabto raali geli maxay tahay buu ma beel isaaq la dhahan raali geliya mise golo baarlamaan baan raali geliya golaha baarlamaanka waxaan kaga gafay la yeeshaa haddii aad beel raali geli leedahayna hadaba wajaad kale aad bay isugu kululaadeen golihii muuna suura gelin fadhigiisii
hebelow qabo celiyo mari askarta xagga ka soo dirir marka ma gacan hadal baa marka halka maraysay dhacay gacan ka hadal baa dhacay oo gacan ka hadalka qoladan baarlamaanka Soomaaliland wax naf gooye gaadhana ma wax aad u raagana ma labadii murantaaba way u iswaawabin oo waa la isku gacan kuraasna bal isku waabiya waa mas'uuliyad marka gacan ka hadalku waa intaas nin dhig ka daaday inaad arag baa laga yaabaa inay iyagoon soo gacan qaadan soo kala dareeraana waa mid suuragal ah waa dhaqanka jamhuuriyadda xorta xagga baarlamaanka xorta ka nimankaas intaas saaka dhex martay aad baa la isugu buuqay golihii fadhigiisii waa fashilmay askar baa soo buux dhaafisay waa laga soo dareeray abibna wuu guuleystay oo wuxuu ku guuleystay qorshayaashii lagu xukumay ee xildhibaanada iyo gudoomiye ku-xigeenka Siciid iyo waxaan oo dhan la isku dabaabasay maalmahan oo dhan muuna suura gelin kii oo ahaa waan isdhiibay waan raali geliyay waan qaldamay Cabdisaaq Khaliif Tuub buu ahaa ciidamadii meesha weeraray way ku saxnaayeen min adu wax noocaas inuu bilaabo qorshihii u ekaa oo fashilmay wuu diiday wuu madaxadeegay rag taageerana wuu helay oo aad moodaysaba inay ka hore u sii tashadeen markuu saa tallaabo u qaado ka garab qaado taasi waa baarlamaanka Soomaaliland waxa kale magaalada Berbera ka dhacay Burco ka dhacay banaanbax aad loo soo agaasimay weyn oo moodaysa in loogu jawaabayay midkii ka dhacay isaguna Berbera iyo Hargeysa habeena ka hor kaasi oo lagu taageeray ciidamada sida sheegeen qaranka Soomaaliland lagagana maxaan ku dhahayay laguna digdiganayo dadkii la saano lagu laayay oo sida loo ekeysiinay heestii qarankana laga qaaday kaas mid lagaga jawaabayo oo la yiri waxa soo agaasimay ama qabsaday dhalinyarada beesha Garxajis يعني بيل كلي سي أود أو يلان كرت بنا بحا أنت على أبو قبان كرت وير لياب دلين يرى داس وحيرهن لاس عانو يعني أوينا لا درين نهاي لا فكر نهاي عنو نكحن نهاي حسوق اللوجست موسى مونا كجوابين أذكرتي سمينا كلا دينين وهو كان سلاح يسميه موسى ميو تبر بيلا مثل الديمقراطية دو soo yar barbaranaya shirar waaweyn oo isaga laga soo horjeedo marka Soomaaliland ka dhacaan xisbiyo weerar jiray hadee awal sidoo iyadoo la yaqaanay oo liintu ay diyaaro ahayd haddana kulamo waaweyn iyo shirar Hargeysa dhexdeeda ka dhacay oo laas caano lagu taageeray oo isaga laga soo horjeedo oo una gaagoomka tiraynin baad arkay oo markaas dhahayso Muuse waa soo jilcay dhanka kale iyo magaalada laas caanood dagaal madaafiic badan baa ka dhacay xalay waa hoobiyaal baa la isku garaacay dhankiiyo dhankaba waa la isku garaacay laakiin mid la horeeyay lama cadaynayo mar haddii magaaladii la iskala baxay oo dibadda la isku hor fadhiyo nin walba wuxuu ku buuxin kilomitirka hoobiyaha uu ugu rido ama ha disho ama kaaraha ku dhacdo ama difaaca ku dhacdo ama ha sigto waxa weeyaan dagaalkada noocaas isu bedelay Laas Caano dhanka kale magaalada Laas Caano xogaa waxa ka dhaqan galay bandoowi qolihii booliiska ahaa ee booliiska loo dhisay deegaanka la dhaha booliiskii deegaanka loo dhisay councilka wuxuu amniga sugay guriyihii uu soo baaray uu soo waxeeyay dowlad dadkooda hubaysan yihiin haddana wuxuu hub ayna raali ka ahayn iyo maandooriyaashii waxyaabahaas yaa laga tafatirayay intaa markii laga dhameeyay waxaa ku xigtay in bando lagu soo rogay magaalada taas oo ay bandoogaas maamulayaan ciidamada deegaanka Laas Caano 3 saac oo fiidnimo ama 9 fiidnimo xilligii bishii soo gali jirtay wixii loo gaaray ganacsi oo dhan oo in albaabada la isugu dhuftaa ruux magaalada socdana waa inaan la arkin istiraatiijiyada waxaa qaatay golaha haysta Laas Caano xagga kale haddii aan Laas Caano ka hadlo wararku waxay sheegayaan in ay abaabulooda Soomaaliland oo tallaabadii ugu dambeeyay ay rabto magaalada ama inay kaga quusato amaba ay gacanta ku dhigto magaalada saan sheegnaba ciidamada ammaanka SSC gudaha magaalada ka talanayo oo aqoon dadkii ku soo rogaya iyo dhaqdhaqaaqa magaalada maamula marka hubiyaasha saaka dhacay iyo duulaankan la rajaynayo in ay weliba saacadaha foodii nagu soo hayo inay Soomaaliland qaado bal iyaga maxay nuxugu ka haynaa xaas u malaynayaan labada dhanba diyaar garow dagaal ama duulaankii ugu dambeeyay baa ka socda
waxaan hor bilaabay khatuma hor bilowday ciidamada beesha hebel ciidamada beesha geri ciidamada beesha kan ciidamada beesha kan way isu soo dhoowayeen ciidamadaasi ma aynan u soconin inay laascaano qabtaan oo laascaano mar horaaba la qabtay inay weerarka ay Somaliland soo qaadayso iskaga difaacaan unbay u yimaanayeen Somalilandna laascaano mana ayna sii daynin oo beesha caalamka taladeedii ma ayna qaadanin ee la yiri ka bax ma ayna ka bixin oo dagaalkii difaaciyaha ka soo baxday ma ayna yeelin gacanteedana kuma jirto talaabada kaliya u bannaan Muuse waxa weeyaan intuuna doorashada galin inuu laascaano qabto talaabada kaliya oo isla ku bannaan tahay waa midaas taasina si ay ku suura gali dhimasho badan baa ka sokaysa iyo maxaan ku dhahay culays u badan tahay inaynan suura gelinin riyada iyada Muuse ciidan buu diyaariyay waxa la wixii ciidan u jihaystay kii berbera joogay kii burcad joogay kii gabiilaydan joogay kii waa la qaldanay waxa lagu dhoobay xuduudda laascaano laakiin intaa iyo in ka badan ba iyagu joogaan baa laga soo saaray daliil uma aha taas inay qabsan karaan haddana inuu dagaal kale hadda bareer u qaado caalamkiina kala dhintay Etoobiyadii maxaan ku dhahay kaliya hayde isku haleynayeen kala dhintay Ingiriis iyo Ameerikana kala dhinto safaaradda Mareykanku war xabaysiiso ka baxa tiina ma uunan nin sameeyay uma indhacada marka ninka la yiraahdo Muuse tala xumada wuxuu ka yahay abiyo kale abiyoon ba isagoo ka joogta lahayo un buu dalaq qolan meesha uu ku socdo ninkii marka Muuse abiyo iyo Muuse dabcan wayar laba dal oo kala wada maadaama maamulayeen waddankan saanad ciidan iyo military way intaba u haystay nidaam reerna uu jirin qoomiyadahay oo ka awood badnaa marka seelas ku soo barbardhigi kara labada waxa la soo barbardhigi karaa mid walba dagaal aan jibiyo jahatoona lahayn oo uunan marka hore sii daraasayn wax ka dhalan kara uunan natiijadiisa gacanta ku haynin oo dagaalkuna isbaat wuxuu ama qoomiyad ama shacab gaar isu abaabulay uu yahay lagama guuleysto intaas isku mid ka yihiin haddii marka hal qoys oo yar qoomiyadda Tigreeg oo kale oo yar tahay hadda midkan laascaano qofkii la yiraahdo reerka daga Somaliland oo dhan markii loo fiiriyo way ka awood yar yihiin ama way ka yar yihiin oo ciidankii qaranka la leeyahay oo qabiil kasta ku jiro oo dadkii mushaarka qaadanayay oo tababaran markii loo eego haddana waxa iska celinaya Muuse hortaagani waa gadadka shacab marka taliyuhu ama mas'uulku haddii uu shacab gadooday inuu isu soo mutaxo ninka adduunka ugu farsamada xun Muuse marka tiibu ka sifooday farsamo xumo ka weyn ma jirto shacab gadooday oo aan arko oo ila dagaalamayo oo habbeel isu abaabulaya oo deegaankiisii jooga yaan askar iyo ciidan Afrika lagu qabsan waay xilligii yani qarnigii 18aad Afrika reer Yurubkii haystay waxay kaga baxeen waxay ogaadeen inay qori afkii ku hayn karin mar haday ogaadeen qori afkii inay ku hayn karin farsamo kale aan sameeynayeen tan marka qori afkii laascaano laguma haysan karo laguma qaban karo in marka uu ka baxo uu haduu ruux fashilmo inuu si gobonimo oo fashilmo haduu guul daraystana waa inuu si guul darro u guul daraysto si gobonimo loo guul daraysto oo uu yiraahdo yani waji kale aan qaato hadda laakiin dhimo alla kuma naxariiso waxay Soomaalida isku soo qabtay mikralayn buu soo qaban karaayo inuu iskaga soo tago warsaad doontaan yeelay yiraahdo waa isku qabasho Soomaali laakiin inii uu si waxay taas minaysan inuu taariikh marka carabiga meena laga yaabin maadaama uu dalku waa guule maxaa taariikh xuma doorasho horta ku soo bixi maayo doorasho ku soo bixi maayo ninkan doorasho ka hor buu guul daraystay codkoon dhicin iyo Muuse guul daraystay reer Somaliland baa ku sheegay codkii on dhicin buu guul daraystay tan marka haddii uu maanta sool ka baxo sharaftiisa shakhsiyadeed soo doorasho waxa la gaarin iyo inuu caymo u noqon haddii laakiin lagaga soo guuleysto oo la soo eriyo iyo haddii uu barta u fadhiyo la soo eriyo waayaba labaduba way ka sii daran wata Cabdiraxmaan baad mahadsantahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka xog waran oo aan diiradda ku saarayno dabcan magaalada laascaano iyo xaaladda ka taagan halkaas iyo sidoo kale baarlamaanka Somaliland oo maanta la sheegay shirkoodii in ay gacan ka hadal isku bedeleen isla markaana la isku khilaafay fadhigii xogaha dambe ayaa la socon doontaa waxyaabaha ka soo cusboonaaday balse laakiin hadda waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkana waxay kala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan oo Fagaadho oo ala ila falanqeeya arrimaha la xiriira Soomaalida iyo waxyaabaha ka dhacda intaan barnaamijka ay ku kulmi doono waxaan idin tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo